shabakadan waxaa lafdhabar u ahaa canshuur cismaan abuukar oo magaciisa afgarashada loo yaqaanay asad. waa 21 jir aan weligiis iskuul iyo dugsi quraan toona dhigan loona carbiyo oo keliya inuu ummadda halaago. عندنا أنا أول مركزي حالي واحد أسكت أقول جيرانتي دكتور قرآن سكول منا ما دقنا ماشان مال 100 اللي هدنا لا يحلو مع سكول ما ولا يحلو دكتور قرآن حاله حتى قال لما لو دلي ما هي لكن واحد لو دلي قال إنه يا قال محارب أو كل الدرية أو حقائق كوه هيسته أو كدل منه يو دبعت كوه جيسنيه كوه أن كدل منه آيات كله بكسو أروري لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. weerarada arbushaada oo aan lahayn bartilmaameed rasmi ah ee uu fuliyo canshuur waxaa ka mid ahaa weerar ay ka sameeyeen agaarka isbitaalka Digfaar kaasoo ay ku qaadeen gaari haartooba oo maraya halkaas oo ay lahayd shirkadda Dahabshiil. waxaana weerarkaasi oo dhacay 15 bishii 8aad ee sanadkii 2007 loo geystay hal qoys iyadoona weerarkaasi uu ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad waxaana ku dhaawacmay mustaf xasan cabdi cawad xabiiro xasan cabdi cawad cabdullaahi cabdirasaaq boosi qaalid maxamed cadare iyo cabdiraxmaan axmed cigaal oo dhammaantood hal qoys ahaa. isgoyskan Digfaar hortiisa oo dhinacan banaadir marka laga imaado Digfaar marka ka baxdo oo meeshan carwooyinka inta la gaaro ka soo keenay isgoyskii yar meesha noo saan ugu leexanay gaari haartooba gacan la anaga hor imaadaniyo walaal tan waa weyn way tan ku nasiibsan aadaniyo tan ma laga fahmo watan waa lagu jira maanta walaal tan anaga hor imaaday marka ku bilaawniyo waa ku shubnaadii ninkii baad hal qasmo ku ridi waa ka cararnay markaas ka baxsan waraayay waa shaqada waa galnay ma gashanaa soo baxa iska baxnay marka meelaha siimay uu soo waray ونو بحبة ما تقولين مني عروض نكد كانوا لأني ما يرى اللي إذا يصعد تبر كده كانوا لأني هذا بحال أسمع قرب عندنا مركب أنا جاري بنسل قلت أداري تام مرة قبضتهم لأني هذا بحال إني يعني شغال هذا ما أدري إني فاهم ما يقدر مرين هذا أسكال وراي واحد ما له صباح قريب من ده وما أدري. canshuur abuukar cismaan asad waxa uu weerar kale oo aan lahayn bartilmaameed la beegsaday gaari maraya agaarka isgoyska Via Roma markay taariikhdu ahay 30 bishii 9 sanadkii 2007 oo ay ku geeriyoodeen marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo marxuum Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Batuulo Sheekh Axmed Gabale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka. gaariga ay rasaasta ku fureen waxa uu ahaa saarif uu sheegay inuu la muuqatay inuu saaran yahay qof mas'uul ah sidaasna ay ku bartilmaameedsadeen. gaari saarif oo baraad camal loo malay uu samaa aragniyo waray kan ku qabsanaa adiga barxaddan yaasiin maal dhamaan agaarkan ceelgaabta meel dhawaad ay joognay marka waa daba kan isgoyska Via Roma ku galnay ممكن ما يلا ضبك عن هرت عبارة أنا هرت باش واحد ضبش الرئيس أنا كده وتقني اسمه مرة ثاني شيء اللي إحنا شيء لا حس ليس أكش مني لو خلاص صدقني كلامرني هو ذي شغل واقلني وسقط كوجر ما أنت صدق كتوس كيجي وحبض إيش أنا مغلى واقع شيء مو هاي كعر ماشي كعرني أصلا ما جمو أسكب بحث عنه هاي تصب بعمر كان ما كسر ده سيدي أو بعنا مركا أوتقني يوم بعدين يومين ما تحور يويل كذا كل ندمي يوم بعدين تحور يضرب واحد واحد ما عصنا شيء هذي. canshuur markii uu weeraradan dhowrka ka fuliyay Muqdisho waxay uga dhigeen kooxdu inuu yahay nin guulaysto oo ay tahay in la dalacsiyo waxayna u wareejiyeen sahanka goobaha la qarxinayo iyo caawinta ismiidaamiyaasha. markaba ana waa leeyahay wareej markaan Cabdiraxmaankii in ka sareeyo iyo amiirkiisa ay imaaday isaga ay watay markaa doctor marka ma ay ninka liidahay iyo marka doctorkii baa ay imaaday marka ninkan uu sheegay ninkan amiirkeena waa u dhahay marka akaas wuxuu dhahay waa isaga waxa weeye meel ku geenay oo soo kuwadana isaga raaca mara diyaar waxaan dhahay doctorkii marka waa asraan ay safar la galnay buurfalay aadnay buurfalay marka tagnay oo dhahay saaxiibkii yorjo waa sheekaysan wuxuu dhahay برنامج شغل رمنا شقة فاهم عملية
عورة ساعة وشغلة معي إنك لو طليقان أكون قد رجع أوضه أرمنا ولا hawshii ugu horreysay oo qabtana waxay ahayd weerarkii argagixisanimo ee lagu qaaday hoteelka Naasahab Lootu kaas oo soo tusay ismiidaamyaha iyo naftood qarrabayaasha loogu talagalay qaraxa kadib inay hoteelka galaan gaari بريمي iyo gaari barada ah albaabka lagu furay gaari بريمي iyo qamaasiinta saareen oo maxay ahayd markii qamaasiinta aan wado iyo gaari aan barada ah soo baxnay meelahaas ay bacaadka imaan xoolaha wax yar ku nasanay markii daba ka soo daayay marka waqti galab ama ka soo baxnay soo soconay magaalada sidoo soo galnay marka sidoo marna wadadaas kora marnay oo wadnaha xagga Fardajiina ka soo leexanay inta ka soo galnay marka meesha oo taalada agteeda meelahaas oo istaagani marka istaagay ninkaan soo dhaafay ku kaciyay marka albaabka markii baasha dhacday social reanne qamaasiinta ilid ku daadinyo ilid warka ku daadiyay way galeen marka galeen aniga marka go'aankii wuxuu la soo sharxay macna markii qamaasiinta dejiyay inaan meesha ka laabto cabaar meelahaas ku soo boojay oo gurmadkii waxaas markii yimaadaan aan hadal ku soo laabto isku qarxay intaas u baaday ku qoranaadii argaas walaaniyo qamaasiinta marka daadiyay marka aniga gaariga waa istakaatay wuu socon way qashin gaariga macna aan wutaani wuu socon way niyo marshado inaatar leh socona bis hore dhan waa diiday qad rag iga degan xabad way socdaa baash waa isku lismaysaa adiga gaariga wuu socon way doctorkan ku dhufto doctor wani rag baash waa socotaan doctor ninkan soo diriyo hagaayo way amirkeena wani baash waa socotaan ma fahmi ragin meesha way galeen aan gaariga uga halaago iscunlay ilda iska jooga marka meeshaan asay su'aalaaniyo waa cadbili ugu horeeyo ugu maalan ku qabsana taasmiya ruuxdan gaariga soo degniyo gaariga soo meesha ciidana jooniyo ma leeqata radii soo degniyo ma ku qornaan soo degadiyo gaariga marka yaa tara waxay uga qaadiyaan yaa tara soo socday binaanka u bixi xagga geemeesha taalada agteeda marti meesha geemeesha ka geey fataq waa ka dagay marka ka sii daayay sidii martii ay ku dhamaatay oo baxsaday halkaas kuma ekaan dhagarta uu shacabka u maleegaya canshuur waxa uu sahmin iyo tusidba ku lahaa weerar dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii lala beegsaday xarunta degmada Howlwadaag hotel Saxafi dhammaan qaraxyadaas waxa uu ku lahaa inuu soo wado qofkii isqarxin lahaa uu soo tuso meesha uu isku qarxinayo kadibna uu soo wado gaariga uu isku qarxin lahaa uuna keeno meesha bartilmaameedka waa kooxda kuna wareejiyo ismiidaamiyaha من تلافن والله سادري ما لا كره laga soo wacno oo taleefanku wada video ku hada macna saadani warniu magaalada gadaasha waa dhisantay maxaa ogeed meeshan iskuulkan gadaasha halisay degmadii Howlwadaag waatana soo dhaay degmada taleefanku qabana arkano ninkan inta taa fiiri meesha taleefanka tagaa fiiri waa arkay meel baabuur yeelana dad fadhiyaan iyo wax waa arkano ilaa waatana miya meesha waa ku leexday marka goolad yar ahayd meesha gooladan la noqday waa arkay meesha dad hor fadhiyaan ciidan yar hor fadhiyay iyo xeeladana waa arkay qaabkii u dhisan bay waa arkay marka meesha waa xilay si fiican oo fiirsaday waa ka dhigay waa soo baxay marka gaariga soo qaadanay gaari baraade soo qaadanay waa ka soo daayay meesha nimaanay marka meesha soo dhawaadi oo meesha degmada ii muuqato ana saakay waa taasaan ya gaari baraade u taan أنا ليالي marka daba maxay ahayd nin liiraa ma kama soo dhawaanay soo gaarnay waa ka dagaanay ninkan oo heshiis qabsado ku kaciyay iska baxay sidii aan ku laabtay marka ma badoonayaan inaynu dawladano durduran jiray wiidanahooda samaysan jiray wiidigeena durduran jiray wiidanahooda samaysan jiray aynu dilla aynu dagaale ka digtoonaada dadka yago aynu dilla aynu dagaale
saxaaf ma taqaan way dhawarta saxaafka waa qaan waa dalka marka meelaas marka iska mari jiray qoraalkiisa wixii iska arkay iska sidii iskii aqoonsaday marka waa qaan waa dalkaas inuu tag iridiisa dhinacan oo wadada ma aha dhinacaas kale laga soo galaa wadada elboorka waxay hor loo qaada saas marka la soo wareegto la soo galaa iridiisa soo arag si fiican soo fiir waa anu waxaan wadaa yarka dhinaca albaabka xagga soo galaya dalxaal dhaa albaabka dhinacaas soo galaya oo irid ganjaalka weyn boorti ka soo galaya aan wadaa maxay ilkaasana wuxuu wadaa ninkan oo dhinaca wadada xaggeeda ka duminaya ninkan iqmaasiintu gaari u wadaasan maadira sidii ku nimaadnay marka sidii ku soo galnay aan dhinacana ka soo wareegtay ya جمعة ما هذا ما حسستني أنا جمعة إن هذا قياس عليك مركز هذه معي نقلية هذا أنا نعم وسنة أول ولقيت وضد ابن على البارك وحير هروق هذه كان وحير كسعي ودقي كدق هاي سأل كيف كان قل مركز ساس الدقي تيجي على عذاب وثمرني وقع فر كذا أنا قاعد قاعدة تيجي على ذي ورين عسكرة ويلقى عسوي مرة كده أسوي وقعدي مركي وقعدي أنا مركب باش عن كلا أوجا مقتى أنا واحد نيجي أدون ماشي عن ضد وضد يسوق على لنا جهاز بدقي لوقي ماشي عن أصل مركتنا مركب مدان كلا وش أنت مقتى ديك وقعد حاسس لما هنا أرض لنا عن برافع حاجة صح ما هي كاس كلام يوقعي mid kan aan ka dagay wili kican moogtay hada orada kan iyo ama ku gaara asalaada meel luuqa galno luuqa yara iska gal dadku aruurayaan iska galnin meelaan xoolo dhiig wax gargaareen noo soo galay marka meeshii marka iska galay adiga wadaad waa yar daad hor ka dharaa waxaan meeshan waa dhacaysa haatay waa ka baxay meesha ka baxay mid meeshan waray bixino meesha maanta waa la dilo mid yar meesha joog ربيعي وركار كذا هذا سان وانا تعال عني ماشي صعب مركز كب حي يا عالم قاعد إلهي لما سعده دون دنا لو فجرة ورماي رجازا ساس مركز وسي كعب عنيو باشانا بحلان كذا يجاني وقعد حبدي أسقط مركز ما سنتي سوق قالين مركان وقعد أصلي باش هذي أسقط عنيو اسكب بحث صعب اي سيديان كلابت marka dambe hooshtii sidii aan go'goynay janaala saan noqon markaa qarixii ugu dambeeyay lagu soo qabtay canshuur waxa uu sheegay in qorshahoodu ahaa inay ku burburiyaan tiyaatarka qaranka sidii aan soo baxnay habeenkii meelaan adii subaxnimo la rabaa dhabaay subaxnimo meelada wadooyinka inta xirxirin inaan galno aan rabaa saas miyaan diyaar way soo baxnay markaan subaxnimo sidii ku soo galnay marka halaniyo نحن هرمرة كو جرنجر ماشي جرنجر اللي هذا بارتم جود بكرة جرنجر هذا يبحرن نحن إنه الدمية على الرا يبان ذي نحن مركو الدمية إن كان قريب لنا يودنت وحي صحراء عبد حكينا كل عبادة يستور عنه فروح هذا ديار وايد صار مكان صباحنا مكان ماشي أنا مركب وحين ود قد تعلق مكان ماشي ما أرد برحضة يرو ومعه برادة يرو ماشي تعلق ماشي قاري هذا وكخر حضان ماشي بركب ما ده كدقة يعني مكان مركب تم مكان إلا يتنكر عز ماشي كسوق أسوي ماشي بتاعنا مركب قعدة تاني قعدة قصة شال الرئيس أنا مركب مكان ماشي إيمان وانكدقر منك عودة تعال أنا بسوا ونحن يا باش عند عقيم وعبص ودي باش أنا عودة باش أكون مجرور أنا فين دقيقة السيول هذا كنت على مقاري عيني أم صارت هي وصباحا لما معلومات كذب وصباحا وسؤال مركب هوين هوشان أو بعض لهاي لا أنا ميشان لقلا سؤال معلومات جماعة هاي مركب كذب وصباحا جماعة دي لحسن ولا صباحا لحظة كسر جرنا معلوماتي أبين كده أنا صوصحنا كذب وحوين وش ساسا ما الله دورك أفا ساميرا سبود عاد كده مركي ماشي أو إيماني أو لود وعي وهو أنا كوير ساو أنبيشان مقالي كرا وهو أنا ساس وغاو وأنا أشياء كوير أنا أنبيشان مقالي كرا وهو أنا ساس كوير ساس مركي ودهي وهي ويري مركي سنوا قد بيه
waa gudbay isagana markii la isna gudbay iskaga soo laabta nagu yiri meesha iska dhigan baawarka iskaga degan nagu yiri marka waa ninkii Umar aan waray ninka saan u leeyahay niyo saamu leeyahay wargaari meesha dhig ka soo tag waa niyo asan gaari meesha dhig ka tag gaari marka meesha horta soo kala firin wadam kor soo kala firin soo laawday markaan wacyiga ka laabto wuxuu dhahay gaari meelahaas meel iska meel fiican dhigo gaari niyo meel la dhigo dhaadii ka soo tagay qaraxan ay canshuur iyo cabdixakiin qaybta ka ahaayeen ee la doonaya in lagu burburiyo tiyaatarka qaranka waxaa ku dhintay 27 qofood oo ka mid ahaa wariye Cawil Daahir Salaad waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi 55 qofood iyadoo isla maalinkaas la qabtay canshuur iyo cabdixakiin iyagoo ka degaya gaari saaraf madow ah oo ay dhigeen taalada daljirka Daasoon waxaana gaarigaasi labaad oo qarxay markii dambe ku dhintay marxuumiin ay ka mid yihiin marxuum Faysal Salaad Samow marxuum Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macallimiin ka ahaa iskoolka Yaasiin Cismaan